haddii aad rabto inaad sum ku samayso ama aad isku wada darto daatada table-ka adigoo adeegsanaya MS Word waxaad marka hore cursor-ka geynaysaa table-ka cell-ka aad rabto inaad total-ka ku qorto kadibna waxaad tagaysaa menu kore tab-ka ay layout ku qoran tahay kadibna waxaad dooranaysaa option-ka ay formula ku qoran tahay formula markaad doorato waxaa kuu soo baxaya panel yar input-ka koowaad ee ay formula ku dul qoran tahay ayaad calaamadda equal kadib waxaad ku qoraysaa sum kadib bracket ayaad furaysaa waadna xiraysaa bracketka dhexdiisa waxaad ku qoraysaa daatada aad rabto inaad isku darka ku samayso jihada ay ka jirto cell-ka aad rabto inaad totalka ku samayso ee uu cursor-ka ku joogo tusaale ahaan haddii daatada aad isku darka ku samaynayso ay ka korayso cell-ka aad totalka ku samaynayso waxaad bracketka dhexdiisa ku qoraysaa above haddii daatada ay ka hooseyso cell-ka aad totalka ku samaynayso waxaad bracketka dhexdiisa ku qoraysaa below haddii daatada ay dhinaca bidix ka jirto cell-ka aad totalka ku samaynayso waxaad bracketka dhexdiisa ku qoraysaa left haddii dhanka midig ay ka jirtana waxaad ku qoraysaa right tusaale ahaan aniga daatada aan isku darka ku samaynayo waa daatada ka koraysa cell-ka aan totalka ku samaynayo sidaa darteeda waxaan bracketka dhexdiisa ku qorayaa above kadibna waxaan leeyahay okay markaad tiraahdo wuxuu kuu soo saarayaa totalka daatada sidoo kale waxaa muhiim ah inaad ogaato calculation-ka ama xisaabinta uu MS Word kuu samaynayo inay tahay calculation hard coded ah oo aanan calculation-ka update ku samaynaynin haddii aad daatada wax ka beddesho sidaa darteeda waxaa muhiim ah haddii daatada aad wax ka beddesho inaad mar kale dib u samayso calculation-ka